gabadhan waa gabar yar oo aad u yar oo u da-yar maaragtay nasiibkii iyo calafkani maaragtay guur ciyo degdeg ah maaragtay guurka waa calaf waxaa jira naago oo shukaansiisay u shukaansanayeen calafna u lahayn inay guursadaan 35 sano oo gabarnimo ku gaaray iyo gabdha ayagoona waqtigii oo guurka xitaa isla dejiyeen la leeyahay oo ciyo dhaqsi ku guursanaya gabadhan markaan arkaanay gabar aad u yar waayo idinkana waad arki doontaan waxaan arkaa tiktok oo labadooda dad ka hadlaayo kadibna wax ifahansiiyey waan waaye ilaahay amarkiisa marka waxaan arkay markii daba akoontigeediyaan arkay follow aan dhahay qoraalaan u qoray kadibna youtube-keedaan tagay youtube-keedaan horta intaan qoraal u qorin astaghfirullah qoraal ma u qorin follow aan dhahay youtube-keedaan galay waa soo baaray qisadeedii markaan soo ogaaday ilaa idhool xalaqa baarti kasoo samaysay midka ugu dambeeyo markii la gaaray baan aniga ii sheeg fahmay oo aan si fiican usoo daawaday kan ugu dambeeyaan qoraal dheer aan u diray gabadha walaashay haddana waxaan rabaa halkan inaan u marsiiyo oo walaasha iga yar walaasha kaaweyna ah waxaan rajaynayaa wax badan inaa iga qaado doontid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa idiin salaamaya dhammaan inta ku xiran youtube janaalkayga farxii soomaali official habeen haddii ku tahay habeenka ku wacnaado maalin haddii ku tahay maalinta ku wacnaato wax kasta ay ku tahay ku wacnaato wax badan aan kala maqneen aniga horta ii sheeg waxyaalo badan ay ugu jirjiro haddana aan idiga hor dhicin laakiin insha allah waad arki doontaan waxaan ku maqanahay miska maqani laakiin wax baan ku maqanahay insha allahu tacaala waad ila socon doontaan haddana taladeeda ma aysan ahayn xitaa inaan wax soo duubo laakiin waxaa igu qalafisay salcaaw inaan soo duubo qiso aan arkay aad ay xanuujisay rabaa inaan gabadha u jawaabo aniga qisada ma ku xanuunsanin ani waa dareema ii sheeg ma aragtay nin Soomaali iyo qaabkooda iyo khiyaanadooda waan la socdaa ma fahantay qofkii og wuu ogyahay laakiin inanta waa inan yar oo guurka ku cusub oo hadda dhow guursatay marka inkasta aysan ragga Soomaalida aysan aad isu fahansaneen marka waxaan rabaa wax badan inaan halkan ugu sheego gabadhan waa gabar aad u da'yar horta qisadeeda idinkaas soo daawa doontiin waa gabar aad u da'yar calafkeeda iyo nasiibkeeda yaan waqtigan ma aragtay intaan ayadoo jirta inay nin guursato oo hooyo ay noqoto ilaahay baa u qoray nasiibkeedii ilaahay ka dhigay maasha allah mana la dhihi karo waa guul daro waayo alxamdulilah ubaxuu ilaahay siiyo qurux badan aad u qurux badan oo wejigeeda ii muuqdo baby maasha allah ilaahay ha ku xafido maamiin soo barbaar gabadhan marka waxaan rabaa qisadeeda markaa wada daawaday xoogaa waxaa ku jirjiro qiiro yar ugu dambeyntii ila daawada marka insha allah idinkaana soo daawi doontiin insha allah aniga waa subscribe ii saaran yahay youtube-keeda jabba subscribe aan dhahay waa kaa gabadha waxaan rabaa inaad idinkane subscribe u saartaan oo gabadhii aad garab istaagtaan maadaama dadkeeni Soomaali Maxamed gabar xaggeeda aan laga marin waxaan rabaa gabadhan insha allah inay isla caawa 100 ay ku dhacdo insha allah rajaynaya in ka badanna way u qalantaa waa hooyo yar oo da-yar marka insha allah على كل حال وقتي كان محقق وقت وإذا جينا حربة وقت آذيات وهذا حنون بدن مو إنا شيء كانوا أهلي قوينين من ربي إنا كاميرا دكور و emotion ووقت آذيات وهذا كان هذا كوفي كده حتى ما أعرف إيه أنت وصوت هذا فإن شاء الله أسكرين come on you strong woman أصوم الرحم أوكي على كل حال وقتي كان محقق وقتي فرقة يعني واحد كستنور شيء دم وسجاي إن بلاونيسو وحفير سنة جدي قف كستنور قرح بدن كنا على جر مسوين نرشد وكلا ساعتها أذيك نرشد إن كاستاستي حنون كوسي بدن ويا dadka kaasoo guuleysteen and basically dadkaas waxay aaminsan yihiin la'aantaada inay noloshooda qurux badan tahay hadda ayaga way isaystaan adiga dhex galo dadka waana soo daawan kartiin commentiga igu soo xiraa gabadhan soo daawado qisadeeda si ay soo daawado soo gala dadka ay hadlayso oo yani dadkaas way dhaqan yihiin leedahay ninkii way kala tageen anima waxa qisadii halkan ma kusoo koobi kara laakiin muhiim waa ina adiga baxdaa oo subscribe u soo saartaa
comment qurux badanaa usoo qortaa oo dhiirigelin yacni adigoo adke yacni nolosha ee hadda yacni ay ka dhigooso aad sacab ee leedahay ninkii inaagti nolosha yacni way u dhisan tahay la-aantaada taasaan wax kaa siinaa xabiibti guurka sidiisaba waa calaf adiga nolol waa lasoo qaadatay ilaahu ha noqotaa 2 maalmood oo farxad ba aad soo qaadataan noloshiina intaa isqabteen ilaahu kaba dhig hal habeenba dhextaa farxad aad ku wada qaadataan intaa ilma imaanin intaa xiisaha oo asiga u haye okay wuxuu leeyahay in yar oo farxad waa soo qaadateen farxadaas hadda way dhamaatay kulli shay min cindi allah ilaahay xagiis ayay kasoo dhamaatay calafkiyaa dhamaaday ma fahantay waxaan ku dhihi lahaa marka adiga ha iska dhigin videogana kaleento ninkii inaagta hadday daawadaan waxay dareemayaan in ayaga nolol qurux badan ay haystaa haa ayada way maanta nolol xun ay ku jirtaa oo muruga haysta micnaha naagtina ha dareensiin inaa murug mays gabar yaraa tahay oo qurux badan waqtigaagii xitaa calafkaagii adigoona hay waqtiga looga talagalay in lagu guursado ahayn ba alxamdulilah ilaahay calafka ugu daray waad guursatay maanta mideeda kale waxaan ku leeyahay maanan qasaarin ma qasaarin ha isdhihin waad qasaartay kuma qasaarin gurka anaana kuu sheegaayo waxaadan ugu qasaarin dhamaysta horta xogaa ina waxaa rabaa ilaa iyo 6 daqiiqa madhowsa 1 daqiiqa waa inaa ila daawataan ayada gabadhan maxaa qabtaa maxaa ka fikiraa mustaqbalkeyga ku fikira oo baaba'ay hooyanimadan mustaqbalkaaga ma baabi'in xayaatii ma baabi'in aniga hadda habeen imaanin mustaqbalkaaga ya cumri ma baabi'in ma fahantay mustaqbalkaaga muusan baabi'in hadhihin waxaad ka fikirtaa haddaan kuu sheegayaa gabadhaada yar mustaqbalkeeda ka fikir daa waxa gadaashaada ma fahantay 1 iyo 2 iyo 3 dushan ka soo tuurna ma fahantay inay shalayna guursadeen in kale xitaa shaki baa manoogu jiro inaa lasoo kulmi hal maalin xitaa shukaansi dhex maray ayaa shaki igu jiro wax kale iska dhaafay runtaa kuu sheega xabiibti iska dhaaf gogol aan wadaagnay inaa hal maalin intaas hor istaagnay waa kaa helay miiga heshi isdhaani wallaahi shaki iga jiro waxaas dhan maxaa lahaa forget maa la dhihi jira af ingiriiska maxaa lahaa wax tagay hadda waxaan kuu sheegaya nabi maxamed xabiib malaayiin khayru khalqilaha laga sabray oo dhintay ya waa xabiib malaayiin hadde waa laga sabray hadda sidaas ugu sabar meeqa qofa adiga ku dhashtay ehelkaaga qaraabadaada aa jecleed asxaab diris oo dhintay malaayiin sax dad badan sax intiibo waad ilowda soomaha ninkaa tagayne waxaan ku leeyahay ninkaa tagay waxaad ka soo qaataa kabta aad ku socotaa kaaga qiimo maroonaata kabtan waaba ku socotaa mogti odaxda isaga ilaalinaysaa kulaalka isaga ilaalinaya okay odaxa isaga ilaalinaysaa wax kasta oo lugtaada duraaya ayaad isaga ilaalinaysaa kabta lugta kugu jirto ka soo qaad nin ku furay inay kabtaas ka qiimo roon tahay akiid runta kuu sheegaa xabiibti qiiradeeda inaa idin tuso marabo ugu dambeyn wax yar oo qiiro yar ah ku jirto idinkaana soo daabinaysaan 2 daqiiqa inaa iska waxay marabo gabadha kolley waa taa mujeeda waa gabar aad u da'yar oo maasha Allah qurux badan qalbigaaga haa macaanta gawaani gabar hadina ahludiin ah maasha Allah waa gabar ahludiin ah oo iimaan leh ya xabiibti marka sida aad iimaanka ah oo 100% u yahay iimaankaaga waxaan ku rajeynayaa in aad iimaankaaga si fiican aad u sii adkaysid ilow wixii tagay ka ilow xitaa dibdabaha u soo qaadan qisadiisa ku soo jar halkaan aan ku dhihi lahaa dad badan ay ku dhahay noo soo sheeg is guursadeen iyo intee marooyaan qalli walli ha soo qaadanin guurkooda iyo waxay isku haystaan iyo meesha isla maraan iyo waxaan ku dhihi lahaa iska tir xabiibti videoga hadda u dambeey aniga haddaan ka soo hadlay aan arkay oo hadda kan kugu dambeey video linkaas ugu soo hadasha macalnaagtaas ani micnaha walaasha ka weyn ahay ana single mother 4 aan dhalay alxamdulillah 4 ayaan hooyo ahay 4 odiyana kala dhalay ma fahantay runta kuu sheega xabiibati qalbi maantane waxa tagay yani xaqiiqan waxba kama aha kabtaan ku socda igala qiimo roon oo odaxda isaga ilaaliyo oraxda ya kuleelka isaga ilaaliyo akiid runta kuu sheegaa ninka tagayna sidaas ka soo qaad gabar yar taa qurux badan nolol ku sugayso wada dheer ku sugayso xabiibati qalbi nolol dheer ayaa ku sugayso
single mother waa sharaf alxamdulilah hooyaa tahay ubaxuu ilaahay ku siiye gabadhaas quruxda badan inta iiga muuqata indhahayga hadda ka muuqataa boqoradaasaa ilaahay ku siiye aniga waxaan ku dhihi lahaa videogan kusoo gabagabayn lahaa macaani haddaad daabatay videogeyga bliis waa ku baryayaa video dabaha kasoo sameyn dadka dhahaayo walaalayaalo idinka soomaaliya war jecel iska dhaafo gabadhan nabaradeeda hasii xogxoginaya nooga soo sheekay iyo intay maroosaa iyo waxaas qalli wali ka daaya gabadha wax ay soo duubaysa ani haddee wallahi eewaanadeyda qaadan lahayd yaa laga maskaxda yaa lagaa qasin xabiibata albi faloogi qurux badan nolol qurux badan nolosha gurigaaga ku nool ee gurigaaga waxaad samaynaysid saaka markaa soo kacday sida aad u istirooxaysid tus farxadaada keliya xayaati albi farxadaada keliya tus bilaahi waa ku baryaa farxadaada keliya noloshaada keliya ku mashquul taada un tus ha tusin ina ayaga kasii hadlaysid intaas ayaan ku dhihi lahaa please share garay gabadhaan iga gaarsiiyo walaasha tiktokana waa kuusoo dhigayaa haddaad videogeyga aragtidne please commenti kasoo bixi inaad aragtid aan ku qalbiga qowsado wataaniyan mar daba video kaas ha kuga ekaado dadka qalli walli ee kaaga kasoo hadal ku dhahaa okay family farxii Soomaali official gabadhaas soo booqdo waa gabar yar qurux badan waxaan rabaa inaad boqolka iyo isla caaw loo xiro please soo booqdo like share tan ha ka hilmaamina waxaan idin leeyahay family farxii Soomaali official hadalka aan sheega ma qaldanayo ma soo ku saxanaay dadka dhahay ka soo hadal marka laga noo keen intee marooyaan no ha ku mashquulin ha sheegin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa aad ayaan idin jeclahay dadka ilaaga beera assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu